inaad xilligan u taagan tihiin sidii loo soo celin lahaa qarannimada Soomaaliyeed. waxaan aad ugu faraxsanahay inaan arko ciidan Soomaaliyeed oo dhalinyaro ah, wiilal iyo gabdho oo iyaga iyo madaxdooduba ay ka wada shaqeynayaan sidii dalka dib loogu xoreyn lahaa. waxay qaboojinaysaa qalbiga, waxay muujinaysaa qiiro sida aad diyaar u tihiin wixii idinkugu dhan yihiin, aad u rabtaan inaad hooyooyinkiin iyo xaasaskiina iyo walaalihiin iyo caruurtiina u samaysaan mustaqbal ka wanaagsan kan hadda ay ku jiraan. waxaan idinkugu imid inaan idin mahad celiyo, inaan idin sheego inaan ogahay inaan annaga nooga muhiimsan tihiin dalka, sababtoo idinku waxaad soo hurteen naftiina, waxaad rabtaan inaad bixisaan dhiiggiina, waxa u horeysaana ma ahan guriyihiina ama familkiina kaliya iyo qoysaskiina, laakiin waa qarannimada iyo Soomaalinimada. wiilal iyo gabdho idinka idin la mid ah ayaa dhaliyay xorriyadda. caawana waxaa muuqata wiilal iyo gabdho Soomaaliyeed oo ku dhawaad 60 sano kadib mar labaad intay soo istaageen diyaar u ah inay dalkooda dib u dhisaan, dib u xoreeyaan, ka sifeeyaan cadowga caadaystay inay hooyooyinkan iyo caruurtoodna macna darro u dilaan. iftiin weyn ayaa muuqda. waqtigii laga carari jiray ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed waa la soo dhaafay, waxaa bilaabatay waqtigii loo soo cararayay. waqtigii la islahaa awood male waa la soo dhaafay, waxaa bilaabatay waqti la yiraahdo halkan waxa u soo socda ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed. dal walba waxaa dib u dhisa oo ummadda isku haya oo marka ugu dambaysa oo su'aali ay shaki gashay ka jawaaba waa dalka leh ciidan hoggaan toosan leh, tilmaamo fiican leh, tusaalooyin fiican ku salaysan. waxaad u socotaan safar dheer oo aad ugu baxaysaan inaad cadow ka xoreysaan dhulka. waxaan Ilaahay idinkaga baryayaa inuu Ilaahay idin fududeeyo, laakiin waxaan rabaa inaan idin sheego dhammaan madaxda dawladda ama madaxweynaha, ra'iisul wasaaraha iyo wasiirada Soomaalidu waxay ku faanto waa idinka. mar dhowna marka aadna soo maqashiisaan guul dhageheena ku soo dhacda, qalbigeennuna uu ku diirsado, ummadda Soomaaliyeed qulubtooda sii hanan doontaan. annaguna waxaan ku dadaali doonaa inaan ka shaqeyno xuquuqdiina inaad heshaan bil walba, sanad walbana la sii hagaajiyo. qof walbo idinka midana uu qayb ka noqdo nidaam idin adeega inta aad nooshihiin. kii wax ku noqda ama ku naf waayana uu helo xuquuq u joogtooda caruurtiisa ama caruurteeda. dal aan ciidan lahayn dawlad ma noqdo. dal aan ciidan lahaynna sharaf ma yeesho. dal aan ciidan lahaynna xuduudihiisa cir iyo dhul iyo bad ma difaacan karo. dad aan ciidan lahaynna dunida lama tartami karo. waxaan soo marnay waqti dhib badan, weli waxaan ku jirnaa waqti caqabado ay jiraan, laakiin waxaa muuqda iftiinkana idinkaa aasaas u ah. inta aad joogtaan meesha la idin diraayo waa inaad ogaataan inaadan walaal kala lahaynina idinku walaalo aad isu tihiin. waa inaad ogaataan inaadan gobollo ka kala imaanina oo aad dalka Soomaaliyeed ka timaadeen. waa inaad ogaataan inaadan qabiil lahaynina oo aad qaran tihiin. waa inaad ogaataan tusaalaha ummadda Soomaaliyeed ay ku dayatay idinka inaad tihiin. waa inaad ogaataan wiilka iyo gabadha dhinacaada bidixda ama midigta ama dhabarkaada jira inay adiga naftaada ilaalinayso, idinkoo isku duubanna nafta dadka Soomaaliyeed iyo qarannimada inay ilaalinaysaan. midnimada, wanaagga, isu dulqaadashada, is ixtiraamka, isu dhaganuglaanta iyo maqlidda taliskiina iyo taliyayaashiina ayaa ciidanka tusaalaha ugu horeeya ah. taliyayaashiina waxaa la rabaa inay idinku maamulaan si cadaalad ah.
oo ka madax bannaan nin jeclaysi iyo musuqmaasuq iyo qabyaalad iyo gobolaysi sababtoo ah ciidanku waa aasaaska dawladnimada wax walba iyo wixii aan awoodno waa idinku garab taagannahay wanaaguna wuxuu ka dhalan doonaa haddii ilaahay yiraahdo shaqada idinku aad qabataan maalinta aad meel xoreysaanba awoodda dawladnimadaas sii xoogaysanaysa cadowguna way naxayaan Soomaaliduna way qalbi kordhaysa ama qalbigooda aad u sii farxay idinka dartiin ayaa rajo u jirta ilaahay idin nabadgeeyo ilaahay idin fududeeyo guul ayaan idin rajeynayaa Soomaaliya ha noolaato Soomaaliya ha noolaato Soomaaliya ha noolaato ciidanka xoogga Allah guuleeyo ciidanka xoogga Allah guuleeyo idinkana ilaahay idin fududeeyo